maanta waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u yeedhay shir aan caadi ahayn xubnaha golaha wasiirada dhammaan waxaana nuxurka iyo ujeedada ugu weynay waxay ahayd in goluhu uu falanqayn iyo dood xooga ku sameeyo sidii looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa dhibaatada qiimo dhaca shilinka Soomaaliland lacagtii Soomaaliland oo isticmaalkeedii uu soo ururayo soo koobmayo madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi arrintaas waxa go'aan goluhu ku gaadhay xukuumaddu ay go'aansatay in la joojiyo lacagaha saadka iyo dahabka waxa la wixii ka yar $100 wixii ka yar $100 wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oo amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo dahabka Telesom iyo Dahabshiil Group waxa mamnuuc noqon doona in la diro lacagta wax lagu kala iibsado qof loo xawilo telefoon lagu shubto dhammaan mamnuuc bay noqon doonaan waxa u furan lacagaha inta ka badan $100 wixii ka weyn wuxuu ahaa waa la isticmaali karaa xukuumadda xil baa ka saaran shirkadaha qaranka ee gaamuray ee waaweyn in la ilaaliyo waxay ka mid yihiin jecladana maamulayno iyagana waxa waajib ku ah inay ummadda u naxariistaan qarankana sumcadiisa iyo jiritaankiisa dhowraan ribix in qof helo waxa ka muhiimsan in jiritaanka ummaddan iyo midnimada iyo wadajirka ummadda in la dhowro sidaa darteed go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan hor oo la fuliyo bangiga Soomaaliland ayaa soo saari doona saacadaha ay qaadan doonto inta systemka laga saarayo dabagalkiisana isaga u xil saaran sariflayaasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacagta doolarka aan lagu sarifi karin $100 wax $7,000 halka doolar ka badan oo u dhigma $100 $700,000 arrimahaas oo dhan dunuub baa ka waajibaysa iyo qawaaniin la fuliyo ayaa ka waajibaysa ruqsado lala noqda ka waajibaya cid alla cidii ku tagrifisho go'aamada waxa muxuu ahaayay kamida in xukuumaddu ay isticmaasho xeelado iyo tabo lagu xoojinayo awoodda bangiga dhexe waxa kamida in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaaliland oo ay joojiso dawladda lafteedu isticmaalka lacagta adag meelaha looga baahan yahay ee safaaradaha dibadaha iyo muxuu ahaayay safarada madaxda iyo waxyaalo kooban marka laga tago dhammaan in lacagaha la isticmaalo ayaa iyaduna kamida banka awoodiisa la xoojiyo waxaan xoojinaynaa kalsoonida banka Soomaaliland ee shacbiga Soomaaliland ku qabo si ay lacag u dhigtaan si ay u aaminaan waxa goluhu go'aansaday madaxweynuhuna gudoomiyay in banka dib loo eego boardkiisa xeer banku leeyahay golaha wakiiladu ansixiyay boardna wuu leeyahay board madax bannaan oo dad integrity leh ay weheliyaan dadka madaxweynuhu magacaabo si ay kalsoonida wixii dhaliil dawladda ku aana ay toosiyaan wixii shacbigaana ay kalsooni u siiyaan arrimahaasi waxay noqonayaan go'aamada cusub ay kamid yihiin waxaan ku soo ururinayaa talaabooyinkaas aanu qaadnay waxaanu ku rajo weynahay inay hakin doonaan ruuxanka iyo dacaayadda iyo humaaga iyo dhibaatada shacbiga lagu hayo ee lagu kicinayo muxuu ahaa lacagta sarifka lacagta qalaad ee lacagta Soomaaliland lagu qiimo tirayo aad iyo aad baa mahadsantihiin